Tilmaam Academy. Bismillahi Rahmaani Rahiim. Kusoo dhawaada mar kale course-keennii English Vocabulary in Use levelkiisii elementary level. Maanta insha Allah waxaan rabnaa inaan wax ka aragno vocabulary ku saabsan feelings ayaan ku arki doonaa unit 7 insha Allah. Feelings waa wax kasta ku saabsan dareenka qofka, xanaaq, farxadda, murugta, waxyaaba noocaas kale, baahida iyo oonka and so on. Bal hama ila fiiriya sectionka ugu horeeyo. Marka hore waxaan u qaybin doonaa qaybta ugu horeysa love, like and hate. Love, it means qofkan wuxuu aad u jecel yahay. Like, wax yara kasoo liidataa, it means u jecel yahay laakiin love ma gaarayso, zaid ma ahan. Hate na zaid uu neceb yahay qofkan. Bal hama ila fiiriya examples. A. Love, like and hate. Love, like, don't like, hate. I love my family and my best friend. I like my job. I don't like horror films. I hate spiders. Alright. Bal wasla fahanada love sida lagu fahansiiyo calaamada love waxaa lagu siiyey like emoji oo ku tusinayo waxaan inay jacayl zaid tahay. Hate waxaa lagu siiyey emoji oo murug ama xanaaq ma jecel amal. Marka I love my family and my best friend. Waxaan jecelahay my family waa jecelahay qoyskeyga and my best friend waa jecelahay qofka saaxiibka aad ugu dhow. I like my job. Shaqadayda waa jecelahay. Laakiin I like markaan dhaho iyo markaan dhaho I love yaa sii xeel dheer waxaa sii xeel dheer I love laba xaba la siiyey. I like waxaa la siiyey hal xabo. Markaysaa okay. I don't like horror films. I don't like horror films. Aniga ma jeceli horror films. Filmada cabsida ma jeceli. Haddii lacala iyo shadane waa iska daawan karaa. Wasku dhibi karaa macnaheeda. I hate spiders. Aniga waan nacbahay carcarada. Hate iyo I don't like marka la isticmaalo yaa sii xeel dheer oo zaid ay tahay hate. Zaid aan nacbahay waaye. I don't like ma jeceli laabis. Maybe in lagu qasbi karaa laga yaabaa marka qaar. Section 1 waa ka dhamaan. Section 2 bal hamar ka daba dhaca erey aad u gagaaban waa kuwan. B. Happy, sad and tired. Okay. Happy, Sad. Angry. upset, Cold. hot, thirsty, Hungry. well, Ill. tired, Surprised. ereydan waa ereyada ugu caansan badanaa qofka markuu ka sheekeynaya xaaladiisa. I'm happy adii karta waan faraxsanahay. I'm sad waan murugeysanahay. Maybe xaalad xuna ku jirtaa. Maybe qofaa kaa dhintay. Maybe lacag la-aan kugu dhacday. Maybe imtixaan ku dhacday. xaaladda kugu xun. I'm sad adii kartaa. I'm angry qofkan waa xanaaqsan yahay waa laga xanaajiyey. Okay. Upset waxay opposite ku tahay happy. I am unhappy camal waaye. mafahmino waa iskaaga dhow yihiin. I am sad camal waaye. qof niyad jabsan disappointed no sometimes I am disappointed waa ka niyad jabsan adhaysaa niyad jab camal waaye niyad jab. I'm cold qabow zaa'idaa jiro qofkan dhaxana hayso. I'm feeling cold waxaan dareemayaa u dhahaya dhaxan. I am hot kuleel ayaa hay qofkan. I'm thirsty on zaid markuu ku hayadaysaa. I'm thirsty I need something to drink waxaan cabo ayaan u baahan adhaysaa. I'm hungry I need something to eat waan gaajeysanahay adhaysaa waan baahanahay. I'm well qofkan xaaladiisa caadi waaye. I'm well. I'm ill isbitaalu jiifaa ama gurigiisu jiifaa wuu xanuunsan yahay. I'm ill. I'm sick camal waaye. I'm tired maanta dhan uu shaqeynaya qofkan. marka xilliga habeenka marka la gaaro xilli dambe hadii la gaaro waxaa la aqoonaya qofkaas. I'm tired. I'm surprised
waa la yaabay qofkan arrin uusan filin meel ka arkay. Surprised. Maalmahan dambe waxay ka mid noqotay ereyada caanka ayay ka mid noqotay surprise. Dadka TikTok iyo Facebook iyo YouTube-ka dadka bare surprise aan kaaga dhigaya la yaab. Like arrin aan filin qof aadan filin wadanka aadan ku ogeyn ayaa inta ka aragtay. Wow, it's surprise. Adeesa markaas surprise. So common mistakes aan fiirina markaa. I'm very happy about your news. Adii kartaa. I'm very happy about your news. Like qof ayaa waxa lagaga sheegay arrin farxad leh. Maybe imtixaan u baasay, maybe wiila u dhashay, gabara u dhalatay. Marka waxaa dhahaysaa I'm very happy about your news. Newski waa uu soo gaaray aadan u farxadaysaa. Not I am very happy for your news ma dhihi kartid. For lama ogolo. But you did very well in your exam. Midan okay waay. You did very well in your exam. Imtixaankaa si fiican u shaqaysay. I'm very happy for you. Aad ayaan kugu faraxsanahay adiga. I'm very happy for you. For markaas waa keensan kartaa. Section C ayaan fiirin doonaa markaan. Bal ila fiiriya section C hal mar. Prefer, hope and want. Marka hore ila dhegeyso kadibna aan dul istaagno insha Allah markaas. C. Prefer, hope and want. I prefer coffee to tea. I like coffee more than I like tea. I hope to do well in my exam. I hope that my friend does well in his exam. I want a new car. I want to buy a new car. I want my mother to buy a new car. Alright, prefer. Waxaan doorbidayaa. I hope. Waxaan rajaynayaa. I want. Waxaan rabaa. Erey aad iskaga dhawaa dhammaantood. Bal aan fiirino markaa. I prefer coffee to tea. Waxaan doorbidayaa oo xiiseynayaa aniga coffee. Markii loo barbardhigo tea. I like coffee more than I like tea. Taas camal amineeda. Kafeegaan aad u jecelahay marka loo fiiriyo shaaha. I hope to do well in my exam. Waxaan rajaynayaa inaan si fiican uga shaqeyn doono examkayga, imtixaankayga. I hope that optional way. Haddaa rabto ku dar, haddaa rabto ka reeb. Marka hore waan ku darinaa. I hope waxaan rajaynayaa that my friend does well in his exam. Saaxiibkay inuu imtixaanka si fiican uga shaqeeyo ayaan rajaynayaa. Waa ka boodinaa marka waxaan dhahnaa I hope my friend does well in his exam. Macnaheedu same. I want a new car. Waxaa laga wadaa I would like a new car. Gaari cusub ayaan jeclaan lahaa inaan helo. I want to buy a new car. I want to buy a new car. Inaan gaari cusub gato ayaan jeclahay. Note. I want my mother to buy a new car. Noo dhihi kartaa. I want my mother. Hooyaday waxaan ka rabaa to buy a new car. Inay gaari cusub ii iibiso. Common mistake. Khaladaadka dadka badan ay galaan waxaa ka mid ah I want you to help me. Caadi waaye. I want you to help me. Waxaan jeclaan lahaa inay caawisid. Not I want that you help me. Fagaa miskeenaysa markaas. Sectionka ugu dambeeya section D ayaan kusoo gabagaban doonaa expressions. Sidee qof u weydiin kartaa erey ku saabsan feelingkiisa. Waxaa see u aragtaa okay miya ma fiican yihiin maxuu yihiin see dareemaysaa dhaweydiye bal expressions. Bal hamar ila dhegeyso. D. Expressions. Do you like football? Yes, I really like football. Yes, I really like it. No, I don't like football very much. No, I don't like it very much. How's your grandfather? He's very well, thanks. And how about your grandmother? She's a bit tired. She's a little tired. Alright. Bal hamar ila fiiri bal. Do you like football? Kubadda ma jeceshahay kubadda cagta adiga? Yes, I really like football. Waa dhihi kartaa. Yes, kubadda cagta aad ayaan u jecelahay. Haddaa rabtana football ha ku soo celinin waxaa dhihi kartaa yes, I really like it. Waa dhihi kartaa.
maadaama la isla yaqaano aan isla ognahay inay football laga sheekeynayo waxaa dhehaysaa yes I really like it. No, haddii aadan jeclan waxaa dhehaysaa no I don't like football aad dhihi kartaa. No I don't like football, aniga ma jecli kubadda cagta. haddaa ratidna sida kale u sheeg waxaa dhehaysaa no I don't like it very much, aniga aad uma jecli. It iyo u laabanaysaa, it refers to football ay u laabanaysaa. Marka laba option ba okay waay. How is your grandfather? Your grandfather ka waran, awowgaa ka waran xaaladiisa. He is very well thanks. He is very well thanks, aad ay u fiican yahay, mahadsan tahay. And how about your grandmother? ayayna ka waran ayada. She is a bit tired, xogay daalan tahay. She is a little tired, xogay daalan tahay. isku mid waaye. Slash haddaa aragtid it means marna kan ku tijaabi marna kan ku tijaabi. She is a bit tired, xogay daalan tahay. She is a little tired, way daalan tahay. maxaa lagaga digayaa marka khaladaadka ka badan ay sameeyaan? waxaa ka mid ah common mistakes. I very like football, no lama ogolo. I like very much football, lama ogolo. fahamsado? waxaa dhihi kartaa I really like football waa dhihi kartaa, laakiin waa la diidan yahay I very like, macquul ma. I like football very much, that's okay mararka qaar. marka waxyaabaha qaar aan isqaadan ayaa jiro. insha Allah marka waxaan rajaynaynaa in wax badan aan ka fahnay unit 7 oo ku saabsan feelings, qofka dareenkiisa iyo xaaladiisa sida loo wareysto. waxaan see u aragtaa, ma jeceshahay, ma necebtahay, xaaladda iyo waxyaabahaas oo kale. marka waxaan rajaynayaa inaad ka shaqayn doontaan exercise-ka uu wato unit 7 insha Allah markaas. marka waxaan noo banan insha Allah next unit oo ah unit 8 iyo insha Allah anagoo caafimaad qabna insha Allah.